ninkii qaniiska ahaa ee hooyadiis aflagaadeynayay maalin dhoweyd oo sheegay in uu soo furay ninkiisii isla markaasina hadalkiisa raaciyay habaarkii Soomaalida ayaa maaragtay iga soo baxay. inta aanan muuqaalkiisa u gudagelin marka hore daawadayaal halkani waa Alfa Media Group haddii aad channel ku cusub tahay subscribe saaro gambaleelka hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya xogaha aan baahin. runtii aad iyo aad ayaan uga xumahay inaan inii soo gudbiyo kilibkan laakiin ujeedada aan maaragtay u soo qaatay ayaa waxa ay tahay in aan bulshada ka wacyi gelinayo dhibaatada iyo fidnada oo wada ninkani. runtii nogoma aanan baranin oo Alfa Media Group uma aanan baranin inay arrimaha noocaas ah ka hadasho ama falaqayso. laakiin waxaa jira shabakado badan ee Soomaalida ku faafinaya dhaqamo aan wanaagsaneyn. maalin walba waxaan aragnaa dad ka hadlaya, soo qaadanaya, bambuuninaya ayaan aragnaa. laakiin asaga ujeedadiisa ugu weyn ama dadkaasi ujeedadooda ugu weyn ayaa waxa ay tahay inay bulshadu ka hadlaan oo maaragtay la bambuuniyo oo maaragtay bulshada mar walba la hor keeno. waxaa jira qofku haddii uu ceeb dareemayo ayaa maaragtay laga hadli karaa arrintiisa oo tusaale haddii qofka arrintiisa inta laga hadlo lagu dhaleeceeyo oo maaragtay is ceebsado oo dib iskugu noqdo maxaa ka qaldan maxaa sidan ka ah qofku markuu is dhahi karo ayaa maaragtay arrimihiisa laga hadli karaa. laakiin qof asagu toos u tagay oo wax xishood ah haba yaraatay oo leeyahay aysan jirin mar walbana uu soo taagan yahay waxa kaliya ee looga reyn karo ama looga guuleysan karo ayaa waxa ay tahay inaan la bambuuninin ama aan laga hadlin oo halkaas lagu joojiyo arrintiisa. YouTuberada kalena waxaan ugu baaqayaa inay joojiyaan faafinta maaragtay dhaqamada aan wanaagsaneyn oo la xiriira sida arrintan hadda ninkan oo kale inaan la faafinin. waa ay jiraan YouTubero oo maaragtay markii horeba dadka bulshada waxa baray mid ka mid ah YouTuberada aanan doonayn inaan magaciisa halkan ka sheego oo mar walba qofkii raba inuu bulshada maaragtay fasahaad iyo maaragtay dhaqan aysan Soomaalida hore u lahayn ku soo kordhiya raba inuu maaragtay soo qaata qofkaas oo maaragtay aad u bambuuniya oo xitaa jawaab soo siiyo haddana ugu jawaaba taasoo maaragtay dhalinaysa hadal hayn. marka anagu haddii aan nahay ka Alfa ahaan nogama aanan baranin in aan ka hadalno arrimaha noocan ah mana ka soo hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. YouTuberada kalena waxaan ugu baaqaynaa in ay joojiyaan ka hadalka barnaamijkan guud ahaan ayaga ujeedadooda ugu weyn waxa ay tahay in la hadal hayo oo ay bulshadu hadal hayaan oo maaragtay Soomaalida dhexdeeda hadal hayn badan oo ka dhaliyo. waxaan arkayay dad fara badan oo Soomaali ah ee u doodaya. waxaa jira fanaaniin Soomaali ah oo dhiirigeliya arrimaha noocan ah waana nasiib darro aad u weyn. bulshaduna waxaa looga baahan yahay in ay arkaan dadka maaragtay waxyaabaha maaragtay dhaqan dooriska ah oo aan maaragtay bulshada dhagahooda u wanaagsaneyn jiilka soo koraya caruurta dhalan doonta iyo dhammaan dadka hadda jooga saameynta ku yeelanaya in laga hortago. waa saaxiibkiin Qadar Cabsiyo oo inii rajeynaya inaad ka hortagtaan dhammaan waxa diinteenna dhaqankeena dadnimadeenna dhammaan ka hor imaanaya iyo dadka faafinayaba inaad maaragtay ka hortagtaan oo aad ku diidaan waxa ay inii hor keenayaan.